السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan akhaari meel kasto aad joogtaan. Ku soo dhawaada war degdeg ah oo hadda saaran warbaahinta caalamka oo dhan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku soo qoray boggiisa la yiraahdo Truth Social warbixin la yaab leh taasoo uu sheegay in diyaaradaha Mareykanka ay goordhow duqeeyeen goobaha muhiimka ah ee nuclear-ka Iran. waxaa ku jira goobta ay Israa'iil u maaraweysay ee la yiraahdo Fordo iyo laba goobood oo kale. waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah qoraalkiisa wuxuu gadaal ka sii raaciyay hadda waxaa la joogaa waqtigii nabadda. nuclear-kiini waa ka takhalusnay saddexdii meelba wuxuu yiri weerarkii lagu qaaday wuxuu ku dhammaaday si wanaagsan. mas-uul isaguna Mareykan ah oo u warramay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa wuxuu sheegay in diyaaradda weyn ee Mareykanka ee la yiraahdo B2 ay ahayd midda garaacday oo bambooyin 14,000 oo kilograam ah ay ku dhufatay midkiiba. haddaba wararka way iska soo daba dhacayaan. Iran waatay ballan lahaayeen iyadii Mareykan hadday ay soo weerarto anna waxaan weerarayaa oo dukum daakum ka dhigayaa saldhigyadaada gobolka. waatii adduunka dhan uu ka qeylinayo oo lahaa arrinkaa hadduu dhaco waxaa la aadi doonaa dagaalkii saddexaad ee adduunka. waatii Putin uu ka digayay cid kasta ay ka digaysay. Trump sida caadada u ahayd waxa uu ku hadlo iyo waxa uu doonayo waa kala laba wiig ayuu u qabtay shalay. labadii wiig wuu ka soo hormaray isla maantaba waa garaacay oo caawa sida hadda warbixinta ugu dambaysa aan idiin sheegay wuxuu sheegay inay diyaaradihiisu duqeeyeen 3 goobood oo nuclear-ka Iran. haddaba maxaa dhici doona marka saacadaha soo socda? maxaa dhici doona? ma waxaa la qaadan doonaa hadalka uu meesha gadaale kusoo khatimay oo ah markan waxaa la joogaa nabadda oo Iran ma iska aamusi doontaa mise sidii horey ay ballanta u qaaday ayaa gobolka dhan isla holci doonaa? arinku halkaas ayuu taagan yahay. wararkuna way iska soo daba dhacayaan. waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah wuxuu tagaa lagu leeyahay meesha la yiraahdo New Jersey. wuxuu la soo kulmayay maantoo dhan raggii wax ka dhisay ah. badankood way diidanaayeen inuu Mareykanka ku lug yeesho dagaalka. qadiyadda iyo fakarka aan kugu taageernay waxay lahaayeen waxay ahayd America number 1. dagaal kale iyo qarrac kale ma galin. annaga America ninkii soo weerara aan iska dhicinayna. dagaaladan adduunka ka socda waxa kana annagu shaqo kuma liin. ciidankeena waa soo qaadanaynaa wixii aan ku campaign gareynaysa intaas ahayn. marka dooda qaar ka mid ah intaas ay qabeen. marka goordhow ayuu ku soo laabtay markuu nimanka soo dhameeyay hawshoodii. diyaaradda helicopter ayaa waxay keentay aqalka cad. halkaasuu marka ka soo degay wariyaasha muusan la hadlin. wuu iska socday meeshii uu galay. xitaa wariyayaashii la wareysanayay oo aqalka cad joogay banaankiisa waxay lahaayeen ma dhici karto in shirka uu la leeyahay golaha amniga qaranka go'aamo waaweyn ay ka soo baxaan. laakiin maxaa dhacay? wax la yaab leh ayaa dhacay. haddaba xaalku halkaasuu marayaa. ninkii Trump ahaa waa duqeeyay Iran. dagaalkana qayb uu ka noqday. kubaddu marka waxay taalaa aayatullaahi xaggiisa. aayatullaahi suu u aarsan doono iyo waxa dhici doona waa la iswaraysan doonaa. ma is dhiibi doontaa Iran? nabad mayay qaadan doontaa mise sida lagu ballamay way dagaalami doontaa ilaa naftu ka baxdo ama ay ka adkaato Mareykanka iyo Israa'iil oo wada socda? warbaahinta Israa'iil ayaa saacada ka hor waxay sii qorayeen in la gaaray waqtigii Mareykanka uu weerari lahaa. laakiin dadku waxay u qaateen in hadaladooda maalmaha dhan caadi iska ahaa. laakiin wararka hadda soo dhacay waxay sheegayaan
in Trump uu ku wargeliyay Israa'iil inuu duqaynta samaynayo go'aankaasna waa la gaaray duqayntina way dhacday hawshu halkaas ayay hadda taagan tahay oo ay maraysaa waxa la sugayaa Iran iyo waxa ay iyaduna ku jawaabto halkaas ayaan ka sii wadi doonaa xaaladdu way culus tahay adduunka nabadgelyadiisa ayaa waxa la yiri khatar weyn soo food saartay ilaahay baa adduunkan maamusha isaga ayaa nabadgelyada iyo wax walba iyo nidaamkiisa isaga maamusha marka bini aadam waxba kama samayn karee laakiin waxa leeyahay sida hadda muuqata xaalku ma fiicna haddii hadda Iran ay tiraahdo waa aargoosanaynaana gobolka oo dhan wuu isla gubanayaa Mareykankii marka uu soo laaban doonaa waa tii nimankii maaragtay Yamaniyiinta ahaa barnaamijkeygii hore aan ku soo qaatay Yaxya Sariici ay ku hanjabayeen haddii Mareykan dagaal ku galo waxaan xiraynaa Bab al-Mandab Iranna waxay tiri waxaan xirayaa Hormuz meel walba waa la xirayaa shidaal ma jiro wax soo maraa male dhaqaale ma jiraan wax jira male adduunka oo dhan asaas madaxa iskula galay haddaba marka sheekadu halkaas ay maraysaa adduunyadii oo dhan heegan ku jirta caawa waxa dhici doona jawaabta soo bixi doonta waxa ay noqon doonto haddaba warkeenii degdega ahaa caawa inta ayaan ku soo gabagabeynayaa waa isla joogi doonaa haddii warar kale oo waaweyn ay dhacaan waan idinla socodsiin doonaa barnaamijka like-gareeya oo share-gareeya fadlan si in badan oo naga mid ay uga faa'iidaystaan oo ay u helaan sidoo kale haddaad nagu cusubtahay subscribe-ka ka ilooban YouTube-ka Facebook-gana follow gareeya fariimaha iyo aragtidiina waa muhiim soo qora oo waxaad sida aad u aragtaan xaalkan meesha uu ku dambeyn doono Iran ma is dhiibay doontaa mise sidii ay noo sheegeen way aargudan doontaa oo Mareykanka isaga ayaa dagaalka ku jabi doona waa arki doonaa meesha xaalku ku dhamaado barnaamijkaygiina waa naga intaa Safari Remit waxay